natiijooyin qaraacan leh ayaa ka soo baxay kulmadii xal laga ciyaaray tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League wareegiisa 16 oo xalay kulmadiisa ugu horeeyay la ciyaaray. kooxda kubadda cagta Real ayaana natiijo weyn waxa ay ka gaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulankii ka dhacay garoonka Santiago Bernabeu oo ay ku ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. City xalay dhan walba ayaa lagu fiicnaa, qaybta hore ayaana waxaa lagu marsiiyay 3 gool waxba iyadoo 3 goolba uu ka dhaliyay xidig lagu magacaabo Fede Valverde oo xalay kulan weyn iyo bandhig cajiib ah qaatay kulankii xalay ka dhacay garoonka Santiago Bernabeu. Manchester City ayaana qaybta hore waxay ahayd mid aan waxba geenin garoonka Santiago Bernabeu. Real Madrid ayaana dhan walba kaga wanaagsaneed kulankii xalay ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Manchester City. qaybta labaad markii dib loo soo laabtana ciyaartu waxba ma iska bedelin. Real Madrid ayaana ugu dambeyntii guul weyn lugta hore wareeg 16 tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League waxay ka gaartay kooxda kubadda cagta Manchester City iyadoo isbuuca soo socda kulanka lugta labaad leegi doono waxa Etihad Stadium ay kula timaado kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Thibaut Courtois ayaa xalay isagu taariikh sameeyay kulankii Real Madrid ay la ciyaartay kooxda Manchester City isagoo caawiye ka ahaa goolka koowaad ee uu dhaliyay Fede Valverde, waxaana uu Thibaut Courtois noqday kulayii ugu horeeyay ee 3 caawin ka sameeya tartanka xiisaha badan UEFA Champions League. sidoo kale Fede Valverde waxa uu noqday xidigii labaad ee kooxaha Ingiriiska qaybta hore 3 gool ka dhaliya tartanka xiisaha badan UEFA Champions League. horey waxaa sidan oo kale u sameeyay Lionel Messi 2010 markaas oo uu Arsenal 3 gool qaybta hore uu ka dhaliyay. xalayna Valverde ayaa rekoorkaasi sameeyay oo Manchester City 3 gool qaybta hore isagu ka dhaliyay. sidoo kale tababaraha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ninka lagu magacaabo Alvaro Arbeloa waxa uu noqday tababare kale oo isagu Manchester City wax guul dara ah aan kala kulmin isagoo tababare ah iyo isagoo macallin ah. 6 kulan oo ka hor yimid isagoo ciyaaraya Real Madrid iyo Liverpool 4 jeer ayuu ka adkaaday Manchester City, 2 jeer barbara ayuu galay. xalana isagoo tababare ah ayuu ka adkaaday kooxda kubadda cagta Manchester City. sidoo kale waxa uu ku biiray tababarayaasha ka adkaaday Pep Guardiola tartanka xiisaha badan UEFA Champions League. horey waxaa ka adkaaday Jose Mourinho iyo sidoo kale Carlo Ancelotti. xalay Arbeloa ayaa isaguna ka adkaaday kooxda kubadda cagta Manchester City tababaraha hogaamiya ee Pep Guardiola. Pep Guardiola oo ciyaarta markay dhamaatay kadib hadlay wuxuu yiri nasiib ayaynu ku leenahay in aan 4 gool nogala badin sababtoo ah 3 gool waa wax macquul ah ayuu dhahay tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City. haddii City sidaas xalay cartaatiqad looga dhigay, Chelsea ayaa iyaduna wadadaas la mid ah la marsiiyay. PSG ayaana 5 gool iyo 2 kaga adkaatay ciyaartii ka dhacday gudaha wadanka Faransiiska. qaybta hore ee kulanka kooxda kubadda cagta PSG ayaa bandhiga goolasha ku horeysay, laakiin waxay noqotay kooxda kubadda cagta ee Chelsea kuwa soo barbareeya, balse mar kale Dembele ayaa hoggaan ku dhiibay kooxda kubadda cagta PSG. Enzo Fernandez ayaa xalay u barbareeyay oo isagoo xalay caawin iyo goolba sameeyay, laakiin wax walba waxay isbedeleen qaybta labaad ee kulanka iyadoo markaas wixii ka dambeeyay 70 daqiiqo 3 gool oo degdeg ah laga dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Fatinha iyo Kvaratskhelia oo bedel ku soo galay oo 2 gool ka dhaliyay ayaana kooxda kubadda cagta ee Chelsea goolasha ugu dambeeya qaybaha dambe isagoo ka dhaliyay 5 gool iyo 2 ayaa lagu adkaaday kooxda kubadda cagta Chelsea. waxaa taasi ay ka dhigan tahay in Chelsea kulanka toddobaad soo socda kurigeeda ku ciyaareyso ay looga baahan yahay 3 gool wax ka badan inay kaga adkaato kooxda kubadda cagta ee PSG iyadoo xalayna Chelsea wacdarahaasi lagu dhigay. tababaraha kooxda ninka lagu magacaabo Liam Rosiner ayaana si weyn loogu eedeynayaa falsafadii ama shaxdii uu kaga hortagay kooxda kubadda cagta PSG, halka dhankiisa lagu amaanayo bedeladii uu sameeyay tababaraha kooxda kubadda cagta PSG Luis Enrique oo dhammaan bedeladii ciyaartaas uu sameeyay ay noqdeen kuwo wax weyn ka bedela kulankii xalay PSG guusha weyn ee ka gaartay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Arsenal oo iyadu sanadkan laga yaabanaa xalay ugu dambeyntii waa la celiyay, waliba waxa ay ka badbaaday guul daro iyadoo Bayer Leverkusen 1-1 kula soo gashay gudaha wadanka Jarmalka ciyaartii ka soo dhacday. qaybta hore Arsenal gool laga dhaliyay waxay noqotay inay ku silicdo sidii u barbaray lahayd. ugu dambeyntiina ciyaarta oo dhamaad ah 86 daqiiqo waxaa yimid goolka barbaraha kaasoo ah Rigore uu dhaliyay Kai Havertz. ugu dambeyntiina Arsenal 1-1 ay la soo gashay. tani waxay ka dhigan tahay in ugu dambeyntii Bayer Leverkusen ay noqotay kooxdii ugu horeysay ee Arsenal xilliyeedkan ka celisa guulo xiriir ah oo gaaraysay tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League. sidoo kale Bayer Leverkusen waxay noqotay kooxdii ugu horeysay ee xilliyeedkan Arsenal goolka uga hormarta tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League. Emirates ay Arsenal toddobaad soo socda ku ciyaari doonta lugta labaad tartanka xiisaha badan UEFA Champions League. dhinaca kale sanadan waxaa laga yaabay yahay kooxda Port Climid oo iyadu xalay guul weyn ka gaartay naadiga Sport Lisbon
kulankii ay ku ciyaartay gudaha wadanka Norway. Kooxdani sanadkan waxay ku cusub tahay tartanka xisaab badan UEFA Champions League wacdana ay dhigaysaa kooxo waaweyn ayna kulamada is-aragga iyo sidoo kale play-off-kaba ay ka soo adkaato. Inter Milan ayaa ugu dambeysay oo home iyo away bay kaga soo adkaatay kulamadii kulan ee play-off-ka ee isku arkeen tartanka xisaab badan UEFA Champions League. xalayna naadiga Sporting Lisbon ayay 3 gool waxba kaga soo adkaadeen kulankii ka dhacay garoonkooda, waxaana kulanka dambe ay aadi doonaan gudaha wadanka Portugal halkaasi oo ay Sporting Lisbon kula soo ciyaareyso. taariikh ay sameynaysaa runtii kooxda Portugal oo iyadu sanadkan ku cusub tartanka xisaab badan UEFA Champions League. natiijooyinkaasi qaracanka leh ayaa ka soo baxay kulamada laga ciyaaray tartanka xisaab badan UEFA Champions League. tani waxay ka dhigan tahay marka kulamada xalay markii la ciyaaray natiijooyin ka soo baxay in kooxaha Ingiriiska oo 6 kooxood ay ku medelayaan tartanka xisaab badan UEFA Champions League wareeg 16 in kaliya 2 kooxood aan laga adkaanin oo 4 kale waa laga adkaaday. Liverpool habeen hore Galatasaray ayaa ka adkaatay halka xalayna sidoo kale Chelsea iyo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Manchester City iyadu laga adkaaday. Tottenham ayaa sidoo kale habeen hore iyadu laga adkaaday. marka 6 kooxood ee Champions League ku medelay Ingiriiska 4 kamid ah kulamadii laga ciyaaray wareeg 16 waa laga adkaaday. Arsenal iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Newcastle ayaana ah kooxaha kaliya ee guuldarooyin iyagu ka badbaaday. kulamada lugta labaad ayaa leegi doonaa iyo kooxaha u soo bixi doona wareegga quarter finalka tartanka xisaab badan UEFA Champions League.